kulanti waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka aadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah afar qodob lagu xasuusan doono ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble xukuumadda Nairobi oo wali dadaal ugu jirto in wadamada Soomaaliya iyo Kenya ay ka wada hadlaan kiiskii badda ee go'aanka ka gaadhay maxkamadda qaramada midoobay ee ICJ-da iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo talooyin la xidhiidha kiiskaasi ay soo gaadheen qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble 20 bilood oo soo ah ra'iisul wasaaraha tobnaad ee dalka Soomaaliya ugu dambeyn shalay ayuu xafiiska baneeyay waxa uu ka tagay sooyaal siyaasadeed oo khilaaf hareeyay waxa uu wareejiyay xil aan u xoog badnayn sida ninka xilka uga dambeeya haddaba maxaa lagu xasuusan doonaa ra'iisul wasaarihii hore siyaasi aan horay siyaasadda loogu aqoon ka shaqayn isla markaana aan baran ayuu madaxweynihii hore Farmaajo 18 September sanadkii 2020 u magacaabay wasiirka koobaad waqti muddaxileedka xukuumadda ay ka harsanayd 6 bilood oo kaliya Rooble muddadii uu xilka joogay wuxuu marxalado kala duwan xaaladan la aqoon taabici siyaasadeed ismuujin ilaa uu markii dambe noqday siyaasiga ugu badan ee khiyaana siyaasigii soo xulay aan eegno afar marxaladood oo Rooble maray oo siyaasi aan la aamini karin dakharada siyaasadeed uu geystay si kasta oo uu guul ugu soo hooyo dagaalkii uu la galay saaxiibadiisii hore haddana waxaa ku calaamadaysan oo duugaanka u geli doona siyaasi aan wax lala dhisan karin waxa ugu badan ee uu dhibaatan doona waa khilaafaadkii ugu badnaa kaas oo uu ka arkayay dhow balse dhaawac weyn siyaasad ahaan u geysatay inkasta oo ra'iisul wasaare Rooble uu sheeganayo guulo tiro beel ah uu ka gaadhay saaxiibadiisii siyaasadda ee xukunka keenay haddana dhinaca kale isla guulahaasi waxay u leeyihiin booga siyaasadeed oo una sahal uga soo kabsan doonin laba siyaasi mar la araga Soomaaliya siyaasiga xilka sida uu weyn qabda saarnaa sarxadda siyaasadda Soomaaliya uu soo galay siyaasadeeda laakiin meel cad oo lagaga baxo ma jirto markasta siyaasiga Soomaaliga waxa ku jirta shakhsiyo u hamuun qabta xiliya xasaanad Rooble waxay dad badan u arkaan siyaasi hal xilliya ama mar la arag ma samaysan xulufo iyo saaxiibo soo noqoshada siyaasadeed dadka qaar waxay u arkaan nin awoodiisa siyaasadeed ugu adeegay dad kale ma shaqaysan mustaqbal siyaasadeed oo isaga waxa uu dagaal uu ka baaqsan karay ku qaaday golihiisa wasiirada waana colaad u dhutinaysa waqtigiisa soo aadan waana sabab ka mid ah inuu yahay siyaasi aan sii waari doonin calaamadaha muujinaya saddex siyaasi mu'aamarad lagu eedeeyay eeda aan caddayn loo haynin ay xafiiskiisa iyo isagaba dul yaala lama yaqaan sida uu magaciisa uga nadiifin doono mar kasta oo magaciisa la maqlana waxaa ku lamaanaan doonaa shirqool iyo mu'aamarad waana magaca dhab ahaan u baahan inuu iska dhaqo si toos ah oo aan dadbanayn afar ma yaqaan hadafkiisa Rooble hadduu dagaal galay wuxuu isku sifeeyay nin yaqaan halka uu socday qorshadii dhacday ayaa qeexday in shaqada qaabaynta iyo qorsheynta hadafka uu ku fiican yahay in ka badan siyaasadda iyo isku jeedka Rooble waxa uu samaan qabtay waxaa liqi doonaa sida ay isula dhinteen madaxweynihii magacaabay waxba la iskuma reeban waxay la wada tageen gacdil ay labadooduba ka baaqsan kareen waxaa ka muuqatay inuu wali rabay dagaal ula sii galay shakhsiyaaduna magac dhabin oo ka baxsan Farmaajo iyo isagoo madaxweynihii magacaalmada hooseysa ugu mahad celiyay kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Rooble wuxuu ka tagay isagoo dhisay madaxweyne aan isaga ahayn kii magacaabayna ahayn waxa ugu weyn oo abaal siyaasadeed heli doonana aan isagu aqoon xilligan dadka siyaasadda Soomaaliya falanqeeya dhinaca kale waxa ay ugu yeedheen Rooble inuu hadda u baahan yahay deganaansho siyaasadeed marka laga tago isagow inuu ahaado qof siyaasadda dusha kala socda wixii hadda ka dambeeya maadaama qabadyadii kooxaha siyaasadda uu u bareeray si ka duwan sidii dhammaan ra'iisul wasaareyaashii 19 ahaa ee isaga ka horeeyay ayna u dhaqmin haatana dowladda Kenya ayaa wali goob ugu jirta inay dhigeeda Soomaaliya wada hadal kala yeelato kiiska badda ee go'aanka laga gaadhay kadib markii ay diiday inay ku qanacdo xukunkii ka soo baxay maxkamadda garsoorka qaramada midoobay ee ICJ-da suuliyiinta Nairobi ay waxay ku taagan yihiin mowqifkoodii hore ee ahaa in labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya si hoose uga wada hadlaan kiiska badda oo muddo dheer dhex yaalay hase yeeshee ugu dambeyntii ay go'aanka madambaysa ka soo saartay maxkamadda garsoorka qaramada midoobay ee ICJ-da si oo biyihii la isku haysay toodii badnaa loogu xukumiyey Soomaaliya markii horeba iyadu iska lahayd biyahaasi waxaana dowladii ugu dambeeyay ee joogay madaxtooyada Soomaaliya intii kiiskaasi nagala dhexeeyay Kenya ay ku adkaysteen inaysan marnaba wada hadal kala geli doonin Nairobi
Nairobi qadiyadda badda maadaama ay rumaysnaayeen in biyahaasi ay yihiin kuwa Soomaaliyeed. Kenyana ay boob ku sheeganayso, waxaana mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ku adkaysanayeen go'aanka laga sugayay maxkamadda garsoorka qaramada midoobay ee ICJ-da. Hase yeeshee Nairobi ayaa gabadhexlaynaysay iyadoo aaminsanayd inaysan marnaba guul ka raaci doonin go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda qaramada midoobay, waxayna sii ogeyd inay been ku sheeganayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya oo aysan iyadu lahayn. Waxaana ugu dambeyntii sanadkii hore soo baxay go'aankii la wada sugayay ee maxkamadda qaramada midoobay iyadoo helisay xaqa, waxaana go'aanka maxkamadda lagu sheegay inay biyaha la isku haystay yihiin kuwa Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa durbadiiba gaashaanka ku dhufatay go'aanka ka soo baxay maxkamadda, waxayna sheegtay inayna marnaba ka tanaasuli doonin sheegashadeeda qayb ka mid ah biyaha waddanka Soomaaliya. Waxay dhowr jeer ku cadaadisay in wadahadal lagala galo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo go'aanka maxkamadda qaramada midoobay. Haddaba intaasi Kenya ugama hadhin qadiyaddaasi, waxayna haddana wadaa dadaal ay ku doonayso inay dowladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud ku qanciso wadahadal ay labada waddan ka yeeshaan kiiska badda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ahaa ninkii maxkamadda horgeeyay kiiskaasi, kii uu ahaa madaxweynihii sideedaad ee Soomaaliya, waxaana xilligaasi isaga qudhigiisa u diiday inuu Kenya wadahadalka la yeesho qayb ka mid ah biyihiisa oo ay boob ku sheeganayso. Laakiin hadda oo la doonayo in dib loo soo celiyo xidhiidhkii ganacsi iyo kii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyay labada waddan, maadaama uu aad u liitay muddadii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay Nairobi doonayso inay wadahadalka ku soo darto arrin la xidhiidha kiiska badda ee go'aankiisa meel lagu soo ogaaday, dadka Soomaaliyeedna loo xukmiyay xoolahooda. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa doonaya in heshiisyo la qorsheeyay inay kala saxiixdaan dib loogu soo celiyo xidhiidhkii diblomaasiyadeed iyo ganacsiga oo go'aan lagu soo daro qadiyadda badda, iyadoo qorshuhu yahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu safar ku tago magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya si loo saxiixo heshiis ay horey wadahadal uga sii yeesheen wada hogaamiye kadib markii madaxweynaha Kenya uu ka soo qayb galay xafladii caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Xasan Sheekh Maxamuud la shaaciyay inuu hadda ka bogsaday safarka COVID-19 oo haleelay, ayaa la filayaa inuu safar ugu ambabaxo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, taas kadibna labada dowladood ay gaadhaan heshiisyo dib loogu soo celinayo cilaaqaadka xidhiidhka dhanka diblomaasiyadeed iyo kan ganacsiga. Haatee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah nin waayo aragnimo badan ka haysta arrimahani ayaa hadda waxaa soo gaadhaya fariimo ka imanaya aqoon-yahanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed, kuwaasi oo loogu sheegayo inaan arrimaha kale ay ka wada hadlayaan labada waddan loo hoosgelinin kiiska badda. Arrimaha ayaa intooda badan lagu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud inuuna marnaba uuna ka hadlin wax quseeya kiiska badda, maadaama uu soo baxo go'aan kama dambays oo ka yimid maxkamadda garsoorka qaramada midoobay, islamarkaana uusan jirin dood iyo wadahadal kale oo ka furan kiiskaasi. Qaar ka mid ah fariimaha kale soo gaadhaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyagana loogu sheegay inuu isagu shuruud ka dhigto in Kenya ay aqbasho go'aankii ka soo baxay maxkamadda garsoorka qaramada midoobay, islamarkaana ay shanta kala baxdo biyaha Soomaaliyeed si ay doonayso in dib loo fasaxo ganacsiga qaadka oo ay hadda u walaacayso dowladda Nairobi. Madaxda ugu daran ee hadda ku taagan Kenya waa ganacsiga qaadka oo ay ka faa'iidi jirtay malaayiin dollar maalinle ahna ugu soo dhoofin jirtay Soomaaliya, kaasi oo labadii sano ee ugu dambeysay aan ka degin garoomada Soomaaliya kadib markii ay joojisay dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ajandaha koowaad ee xukuumadda Uhuru Kenyatta ayaa hadda ah in dib loo fasaxo marka hore ganacsiga qaadka ee imaan jiray gudaha waddanka Soomaaliya, iyadoo intaasi kadibna laga sii wada hadlayo waxyaabaha kale ee qoseeya xidhiidhka ganacsi iyo kan diblomaasiyadeed ee labada dal. Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegayaa inuusan fasixin qaad ilaa iyo Kenya ay ka aqbalayso go'aankii maxkamadda ICJ. Lama se ogo ilaa iyo hadda sida ay arrimahan u maarin doono madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ah nin waayo aragnimo badan iyo khibrad badan ka haysta arrimaha maamulka iyo siyaasadda, maadaama uu markii labaad ka noqdo Soomaaliya madaxweyne, islamarkaana uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee xukunka dib ugu soo laabta madaxtinimada Soomaaliya. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay, sidaas iyo nabadgelyo.